booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan golaha ciidanka salaamka ku bixi doona booliiska Soomaaliyeed oo aad adiga ba arkayso حذر كجرو أو أي كجب تطب يكاتك أي حالة وقارة عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان هلك الربانا إن كيما هذا عليه يضع عيد كونان بدو الجروه ساعة بدو الدوكتان آدي إن كيما هذا عليه الله ما هتكله وصورة قليي دقان سنة قوري تضواتني شهادة كسور آساسكي ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambaliyo guud ahaan saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo qoysaskooda meel kasta ay Soomaaliyeed ciidamada booliiska Soomaaliyeed waa hooyadii ciidamada qalabka sida waa asaasihii hogga ciidamada suubta iyo ciidamada sirdoonka ciidamada booliiska waxay soo mareen marxalado kala duwan iyo duruufo aad iyo aad u adag weliba ay tahay 30 sano ugu dambeysay laakiin waxaa xusid mudan inaan sheegno ciidamada booliiska intoo dabar adeegeen inay u soo noqdaan dib ugu soo noqdaan ciidamadoodii dib ugu soo noqdaan waxaan doonayaa inaan halka ka sheego inta badan waxaan sheegnaa xun inta badan waxaan sheegnaa waxaan ficnayn laakiin waa inaan bilaawno inaan sheegno waxa wanaagsan oo ciidankeena booliiska ay qabteen inaan sheegno oo aan ku faanno ciidanka booliiska leeyihiin halyeeyo ilaahay qarnimada Soomaaliyeed halyeeyadaas waa idinka oo u dhabar adeegay duruufihii adkaa ee dalku soo maray oo diiday inaad ka qayb gashaan dagaaladii sokeeye oo aad badbaadiseen qarnimada Soomaaliyeed dadkaasi waxaa ugu horeeya oo aan doonaynaa inaan tilmaanno oo naga tirsan oo badbaadiyey
qarnimada soomaaliyeed iyo hantida soomaaliyeed waxaa ka mid ah jenaraal jaamac cilmi maxamed oo halkaas fadhiya oo badbaadiyey kaydkii ciidanka booliiska soomaaliyeed laga soo bilaabo markii ugu horraysa oo la as-aasay oo hal aysan ka lumin sidii booliiska oo hooyadii ciidanka qalabka sida loo as-aasay wuxuu naga mudan yahay salaan wuxuu naga mudan yahay xushmo wuxuu naga mudan yahay wax walba oo dalkan uu leeyahay maxaa yeelay waa rikood keliya hadda hayn marka loo fiiriyo ciidanka qalabka sida lama sheego magaciisa waa inaan sheegno jenaraal jaamac inuu badbaadiyey institutionkan inuu badbaadiyey oo qof walba oo soo maray ciidanka booliiska taariikhdiisa iyo wax walba la hayo waxaa jira jenaraal abshir xaashi dakhare oo isagana ku jiraan wadaniyada lahayd taariikhdii soomaali waxaa badbaadiyey abshir oo ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliyeed waa aliyey soomaaliyeed taariikhdii soomaaliyeed waa badbaaday waxaa badbaadiyey nin idinkayda ka tirsan yaa badbaadiyey jenaraal waa ku mahadsanta korneel cabdi waa korneelku waa sarkaalkii badbaadiyey kaydkii wasaaradda arrimaha dibadda ee sirta ahaa waana ciidanka idinkayda ka tirsan waxaa intaas dheer dadkaasi waa astaan qaran weeye oo loo baahan yahay cid walba oo soomaaliyeed inay sheegto bunbuniso wanaaggooda iyo waxay qabteen maxaa yeelay dad badan oo iyagoo kale ah waa ku tacadiyeena laga yaabaa ma aysan xafidin wixii loo dhiibay laakiin iyagu waa xafideen waxayna noqotay taariikh ummadda soomaaliyeed u harta dowladda soomaaliyeedna u harta intaas waa heliya oo loo baahan yahay inaan xusuusanno oo xusid mudan dad ka difaacay oo u dhintay niman soomaaliyeed oo idinku koowaad ka tihiin qaar badanna ay u dhaawacmeen yaa mudan in la xasuusto magacyadoodana aan sheegno meel kastana aan ku qorno magacyadooda haddayna sheegin halyeeyadeenna dadkeena u wanaagsan haddayna sheegin waxaan idiin sheegayaa oo xaqiiqo ah inaan lahaanaynin taariikh waxaan ka sheekaynaa oo ka hadalnaa qof dhib sameeyey waa inaan bilaawno inaan sheegno oo ku tartanno dadka wanaagga ka shaqeeyey oo kooway ka yihiin dadka badbaadiyey qaarnimada soomaaliyeed saddexdaas iyo kuwii u dhintay siyaasadda dowladda ee ka ciidanka booliiska soomaaliyeed ama inaan xoojinno oo aan dhisno ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa kow ka ah oo aan doonaynaa ciidanka soomaaliyeed inay noqdaan ama ciidanka booliiska ciidan ku dhisan cadaalad dhexdiisa ciidan aanan asxaan u samaynayn qof gaaran soo dhawaysanaynin ama qabiilaan ku soo dhawaysanaynin oo lagu soo dhawaynayo qofkaas waxtarkiisa soomaalinimadiisa waddaniyaddiisa kartidiisa iyo aqoontiisa oo aan doonayno inaan tababarro badan furno hadduu ilaah yidhaahdo waxaan doonaynaa inaan ciidanka booliiska qalabayno oo aan u dhammaystirno agabka iyo wax alle waxay u baahan yihiin sidaad maanta ku aragteen bandhiggii halkan ay boolisku soo dhigeen intaasna waa tusaale kooban weeye waxaa intaas dheer inaan xaqiijinno xuquuqdooda inaan xaqiijinno oo ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida aan xuquuqdooda aan xaqiijinno oo aan u dhammaystirno hadday tahay mushaaharaad hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay daryeel kale insha allah hadduu ilaa yidhaahdo kii naga geeriyooda kii naga baxa carruurtiisa annaga ka mas-uula sida carruurteenna halkan joogtoo kale oo maanta noo samaynayey wacdaraha iyo mahrajaanka noo samaynayey
waxaan halkaas idinkugu darayaa jenaraal bashiir iyo jenaraal bashiir goobe iyagu naftigooda carruurtaasay ahaan jireen halkaasay ka yimaadeen marka kii naga baxa carruurtiis annagaa ka mas-uula annagaa korinayna waxbarashadooda iyo noloshooda annagaa siinayna haddii ay noo koraanna waxaan siinaynaa muhiimadda ugu sarraysa hadday noqoto shaqooyinka dawladda maxaa yeelay waddaniyiin halgamayaal yaa dhalay waxaa intaas dheer oo intaasoo dhan aan u samaynaynaa inaan ciidanka mooralkiisa kor u qaadno inaan ciidanka mooralkiisa dhisno oo qof walba oo ciidana uusan cadowga ka baqin maxaa yeelay xaqudir ayaa tihiin waxaad u dhimanaysaan dalkiinna waxaad u dhimanaysaan dadkiinna waxaad u dhimanaysaan diintiinna iyo mustaqbalka carruurtiinna u dhimanaysaan marka qof kasta oo muwaadin ah inuusan ka baqin geerida waxaa nooga daran dunnimada nooga daran waxaa intaas dheer waxaa loo baahan yahay ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan booliiska inay kasbadaan shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed haddaynan haysan oo taageeradoodii kalsoonidooda ayna haysan xooggiinu wuxuu noqonayaa tacab khasaaru noqonayaa maxaa yeelay annagu ma haysanno 100,000 200,000 oo ciidan ma haysanno waxaan haysannoon awoodno waa idinka haddii shacabka soomaaliyeed aynan haysan duushii way fogaanaysaa waxaanad ku haysan kartaan shacabka soomaaliyeed cadaaladda shacabka soomaaliyeed waxaa ku haranaysa taageeradooda iyo kalsoonidooda inay cadaalad u samaysaan maxaa yeelay cadaaladdu waxay ka bilaabanaysaa stationka booliiska ayay ka bilaabanaysaa markii hooyo ama ilma ooya ay idin yimaadaan ama qof dhibaataysan waxaan rabaa dadkaas cadaaladooda inaad siisaan oo oobiga ninka fadhiya inuu wax saxa ka qoro wax rasmi ah ka qoro qofka daalinka ah oo dhibka wadana la soo qabto cadaaladdu meeshaas ka bilaabanaysaa si ay diyo baaraysana inay si sax u baarto oo aysan maleegin evidensiga xaqiiqda aysan maleegin ay run ka sheegto ay u gudbiso marka xeer ilaaliyaha ilaa maxkamadda cadaaladdu waxay ka bilaabatay hoos idinkeedii ka bilaabatay shacabka soomaaliyeed haddaad doonaysaan inaad hanataan niyaddooda iyo taageeradooda waxaa loo baahan yahay inay cadaalad ku dhaqdaan inaad cadaalad u samaysaan waxaa ku xiga oo loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed idinka filayaan inaad u naxariisataan inaad gargaartaan kooda tabarta yar ambalaasadaan arkaynay haddaad arkataan qof dhibaataysan inaynaydan gudbin oo horey ka qaadaan qof inaad horey ka qaadaan qof xanuunsan inaad horey ka qaadaan haddaad aragtaan buq waayeel oo dhaqaaqi laad kicisa waxa weeye farqiga noo dhexeeya annaga iyo kuwa ah oo ilaahay iimaanka ka qaaday oo diinta ah oo naxariista lahayn farqiga noo dhexeeya tii gudaha waa sheegay ciidanka booliiska dhexdiisa laga oo qofka la dallacsiinayo lagu dallacsiiyo aqoontiisa kartidiisa wadaniyadiisa iyo xirfadiisa lagu dallacsiiyo oo aan lagu dallacsiinin qof siyaasi ah warqad soo qoray aan lagu dallacsiinin tan labaad inaad kalsooni ka raadisaan shacabka soomaaliyeed maxaa yeelay iyaga weeye waxaan difaacayno iyaga weeye waxaan rabnaa inaan difaacno tan saddexaad iskaashiga caalamka waxaa laga rabaa jaanka iyo saraakiishiisu inay xoogga saaraan inay caalamka la macaamilaan oo heshiisyo la soo gaaraan oo keeni naga fakada halkan ay dib noogu soo celin karaan meel kasta ay joogaan adduunka ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa wiilashaan waa wiilasheennii waad arkaysaan maanta waxay noo soo bandhigeen waad maqlayseen inay naftooda u hurayaan difaaca dalkooda iyo degaankeenna inay u hurayaan shacabka soomaaliyeed waxaan weydiisanaynaa inay gacan siiyaan ciidamada qalabka sida booliiska iyo xoogga iyo nabad sugidda iyo taliska maxaan ku raahdaa asluubta kulligood inay siiyaan oo ay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan maxaa yeelay maalin walba waa noo dhimanayaan oo naftooda noo halligayaan waxaa la doonayaa marka annagana inaan garab ku siinno
si hawshooda aan ugu fududeenno. dowlad ahaan oo anigu aan madaxweyne ugu ahay waxaa ballanaga ah muhiimaddana koowaad inaan siinayno ciidamada qalabka sida guud ahaan wax kasta ay nagu qaadato inaan xuquuqdooda u keenayno, wax kasta ay nagu qaadato inaan tayo siinayno, tayadooda kor u qaadayno, wax kasta ay nagu qaadato inaan training iyo tababarro siinayno hadduu ilaah yidhaahdo si ay ula tartamaan caalamka intiisa kale insha allah hadduu ilaah yidhaahdo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.